marka koowaad waxaa mahad iskale Alle subxaana wa tacaala. marka labaad maamulka degmada Balcad maanta waxaan u taagannahay daahfurka tartanka akadeemiyada degmada Balcad. tartankaas oo ka qayb galayo 30 akadeemi sorry 30 akadeemi waxaa laga soo xulay degmada Balcad waana 750 dhalinyaro oo degmada Balcad ah. waxaan leeyahay dhalinyarada dowladda inay ka faa'iideystaan inay ku mashquulaan isboortiga. degmada Balcad waxay cadeynaysaa inay tahay degmo isboorti ah oo jecel dhalinyarada iyo dadkooda iyo maamulkooda iska raashto. runtii waa mahad celinaynaa. tartankan waxaa taageerinaya maamulka degmada oo maanta ka joogo gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Axmed Maxamed Cabdullaahi Aawadaad oo taageerinaya tartankan oo quruxda badan. waanu mahad celinaynaa maamulka iyo dhammaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa tartankan. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waqtiga aad iyo hor darteeda waxaan leeyahay isboorti horumar leh. Balcad waxay kow ka tahay degmooyinka ugu horeeya dhanka isboortiga. taasna waxaa sababay isdhexgalka iyo bulshadii oo degmada aad ugu soo badatay. runtii waxaan leenahay maanta tartankan ayaa noo furmay. insha Allah sanadkii labaad waaye aan furno tartankan akadeemiyada. waxaa degmadan laga qabtaa dhowr tartanka akadeemiyada, tartanka iskuulaadka, tartanka xaafadaha, tartanka lajannada, tartanka deegaanada iyo A iyo B iyo C. markaan degmada imaahayni intaas tartan ma lahayn, laakiin insha Allah tacaala waxaa kusoo kordhina hadda horumaradaas. waxaan rajaynaa tiimka naga dambeeya insha Allah ayagana sidaan oo kale inay u qurxi doonaan haddii la yiraahdo. waqtiga aad iyo hor darteeda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin maamulka iyo dhammaan asxaabteyda inta garabkayga taagan iyo baaxa saxaafadda iyo taageerayaasha dhammaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. arrimaha bulshada saaxiibkay Awees Cali Daahir Kabiila xogeeyaha ururka dhalinyarada degmada Balcad macalinka 15 jirada xulka degmada Balcad iyo dhammaan martida sharafta leh waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in la daafuro oo maanta oo la baaso akadeemiyada oo aad iyo aad u muhiim ah. maxaa yeelay waxaa kasoo qayb gashay ilmo da'dooda aad iyo aad u yar oo sanadkan u baahan inay ciyaaraan. maxaa yeelay mar kastaba isboortiska haddii la horumariyo waxay u tahay dhalinyarta dhiirigelin. waxayna la dagaalaysaa dhalinyartii inay isticmaalaan balwad iyo nafacooda oo xunxun la saaxiibaan. laakiin haddii mar garoonkii ciyaar laga daafuro oo ciyaar wanaagsan ay socoto haddana ciyaarta oo akadeemiya haddii sii tahay maba loo malaynayo ilmaha inay ciyaar saaxiib inay ka dhigtaan ciyaar xunxun. waanu mahad celinaynaa maamulka oo tartankan oo diiradda u saaray akadeemiyada sanadkan oo akadeemiyad fara badan ah ilaa ay gaarayso 30 akadeemiyadood. aynu ku mahadsan yihiin maamulka si ay sanadkan u soo horumariyeen akadeemiyada degmada Balcad horumar aad iyo aad balaaran ay u gaarsiiyeen. waxaan mahad celinayaa maamulka degmada Balcad iyo maamulka isboortiska. maanta waxaa u taagannahay furitaanka tartanka kooxaha akadeemiyada degmada Balcad. waana maalin kale weyn oo taariikhi ah maadaama sanadkii labaad oo xiriir ee la qabanayo tartanka akadeemiyada. sanadihii u dambeeyay sidaad wada aragtaan degmada isboortiska wuxuu gaaray horumar ballaaran. marka waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo iyo sanadkan inuu guulo intaan ka sii weyn aan gaarno. aniga ku hadlayo magacaas xulka 15 jirada kooxaha dhammaan ka qayb galayo waxaan leeyahay horumar wanaagsan iyo isboortis wanaagsan aan rajaynaa insha Allah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قدوميها xiriirka wadacagta degmada Balcad Awees Cali Daahir Kabiila gudoomiyaha Balcad Sar Xuseen. maanta waxaa sharaf u ah inaan daahfurno akadeemiyada degmada Balcad oo kasoo qayb galayaan 30 akadeemiya ah. inaan kasoo qayb galno waxaan u tahay sharaf weyn anigoo ku hadlayo afka kan maamulka iyo kan bulshadaba. waxay noo tahay sharafay noo tahay inaan soo dhaweyno ciyaalkan 15 jirada ah si looga mashquuliyo waxyaabaha maandooriyaha ah iyo in lagu mashquuliyo waxyaabaha tahriibka loo yaqaano oo badda oo dhalinyarteena ku baaba'day ayaan ugu talagalnay si kubadda loogu mashquuliyo. marka insha Allahu tacaala cid kastoo soo qaban qaabayso waa mahadsan yihiin. waxaana la jooga macalinka 15 jirada akadeemiyada degmada Balcad
isna waxaan leenahay maanta kaa gaarto waa ku mahadsan yahay ciyaalkan oo tarbiyintooda iyo gacan ku hayntooda aad ugu soo shaqeeyey insha allahu tacaala waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa in si sharaf qurux badan oo ilaahay noogu soo gabagabeeyo oon dhaawac iyo dhib noogu soo gaarin insha allahu tacaala waanu ku dadaali doonaa biidni illaahi tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu